قصاصا ربنا العق مرة مدية مرة واحدة مرة runtana ku biyacbay ummadda Soomaaliyeed labada maalmood ee soo socda ninka waa la sii deynaya baasho iga qof ninkii Sayid Cali waa la sii deynaya waliba dalka waa laga kaxaynaya Kenya ama Uganda ama wadamada bariga Afrika ama Ethiopia la geenaya ummadda Soomaaliyeed ay muuqaalkan idinka inagu talagalay walaasheen oo maanta inaga hooseysa baynu cadaalad ugu raadinayna bil fadlan waxaan inaga codsanayna si share gareeya baasho inay meel sare gaarsiiyaan oo meel kasta oo cadaalad laga heli karo Ilaahayga caadilka cadaalad hana siiyo diya qaadan maayo قصاص أو كليان أباهنا هاي عدالة أجانا رادينيا مدسيدات بلوضة أباها دليلول وحو عدالة رادينيا قبديسا سيد علي ما أنت يوم مركلا محكمة دكاسوم مغضي سؤالو دادك انت بدن يسودين يا ناياه ساقو الله أمر لغو حكومة ديل توغشو يا هرتاغن إن لغو فلو قصاص تاسي إنجنير عبد الغني داهر قاس أي استوديوها مرتي وإنجنير سودو ما أنت محكمة دا يكسر مغضنين سيد علي صدح بلود كده haddaad muuqaalkan iska gudbisid waa adigu mustaqbalkaaga is gudbiyay waxaad haysataa qiimo dhimis boqolkiiba 10 ah $10,000 kaliya baxso kadibna si bile ah lacagtaada u yaryaree 2 sano gudahoodna ka mid noqo qof maantay hanti ku leh waayo noqo ruux hanti leh ilmihiisana hanti uga taga dunida maantay waxa adkaatay sida dhaqaale loo sameeyo iyo waliba sida hal mar lacag loo wada bixiyo adigoon dareemeyn in yar iska hormari adigoon dareemeynin gurigaaga furihiisa la wareeg wax ka sharaf badan mal dad damaanad ku haya walibana waxaaga si sharaf leh ku siinaya hadii ay cilad kugu timaadana ku ogol inay lacagtaada ku soo celiyaan jaaniskan hadaadan ka faa'iideysan bari waxaad noqon doontaa qof jaaniski kaaga faa'iideystay iyo adiga ina kala saramartaan waxa hore loo yiri nin ka guri wanaagsan waliga ma gaartid ninka faras wanaagsan sanad ma gaar ninka haween wanaagsan waligaaba ma gaartid hadaba maxaa sugaysaa guri wanaaga ma qayb ka noqotid let's go wallahi waan maasantahay baashow walaasheen waa naga hooseysa waa marxuumad Luul Cabdicasiis Luul Jasiira ilaahay uu naxariisto ilaahay jinnooyinkeeda gaarka ah u deeqo ummadda Soomaaliyeedna waxaan ka codsanayaa muddo hore cadaalad baan u raadinay ninkan mujrimka waa tii dabcan mar lagu xukumay dil toogasho haddana dil toogasho ummadda Soomaaliyeed ay muuqaalkan idinka inagu talagalay walaasheen oo maanta inaga hooseysa baynu cadaalad ugu raadinayna bil fadlan waxaan inaga codsanaynaa si share gareeya baashow inay meel sare gaarsiiyaan oo meel kasta oo cadaalad laga heli karo Ilaahayga caadilka cadaalad hana siiyo magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir cadaalad baa guri kasta laga naadinaya cadaalad ninkii qaatilka ahaa ee gabadha lagu aaminay nolosheeda iyadoo waliba ubadkiisii caloosha ku wada nolosha ku gubay xayawaanka xoolaha marka la qalayo birta hataa waa laga qariyaa asediiniyan baa looga qariyaa isaguna naagtiisii oo nolosheeda lagu aaminay iyadoo uur 6 bilood ubadkiisii caloosha ku wada ayuu dab qabadsiiyay ninka noocaas aan maanta u doodayna ninka noocaas baynu hor boodayna oo aynu leenahay qabiil ku difaacayna reerku horta ka soo jeeday waa reer Soomaaliyeed sharaf iyo karaamo leh anaguna mana ceebeynano reer Xaaji Saleeman waa reer aan naqaano waxay gudaan iyo waxay galaan laakiin walaalow cadaaladu waxay fiican tahay in gabadhaas masaakiinta ah ee maanta ninkaas caruurta 5 ciyaala uu agoon iyo rajo ka sii dhigay awal horeba ninkii iyada qabay isagoo airport ka shaqeynaya cudurkii safmareenka baa dilay iyada booskii lagu bedelay iyadoo 6 caruur korsanaysa isagoo airport ka shaqeynaya xilibaan sabriya keenay oo magacay airport ka shaqeynaya nin iyo naag Ilaahay baa isku qoray calaf baana markii dambe galay laakiin isagu noloshii waa fahmi waayay gabadhii buu nolosha ku gubay waliba wuu qirtay markiisii hore maxkamadihii muddo dil toogasha baashow ninkan aan hadda run hadaad rabtid waliba runtu qof walba runta rabbi aan ugu jecel runtana ku biyacbay ummadda Soomaaliyeed labada maalmood ee soo socda ninka waa la sii deynaya baasho iga qof ninkii Sayid Cali waa la sii deynaya waliba dalka waa laga kaxaynaya Kenya ama Uganda ama wadamada bariga Afrika ama Ethiopia la geenaya tusaalahaan dalkeena Soomaaliya markii dawladda dhexe dhacday ilaa hadda waatan dawlad saldhiga tabalalaayay waatan inagu aan isku dhaxiyaan oo meel kasta qoxoonti ku nahay tusaalahaan marka aad adigu inside kaaga aad dulmi iska galisid ilaahayna meel kuma bixinayo dulmiguna ilaahay koonkan xukuma waa dulmiga neceb inakii dulmi hadaan iska gallo ilaahayna wuxuu leeyahay adar waligooda ku sii jiraan daayo waxay tahay sababta loo sii deynayo inagoo og in dhowr mar uu maxkamadda ka soo muuqday isla markaana dil toogasho lagu xukumay kow abukaati u doodaya abukaata xalaanan la dhoo abukaata baahane aanu bixiyay abukaata baahane lacag isaga 5 milyan ah baa loo gacan galiyay
qoladii garsoorayaasha ahaa waxaa loo gacan geliyay 10 milyan baashow weligaa ma daawatay filmada ugu dambeeyay fan broch soo saartay atoorihii inta la soo kaxeeyay dambi markuu galay la xukumay haddana la xukumay noloshii ninkan maxbuuska ah ee gacan ku dhiglaha waxaa laga dhigay branki wax la dhaho ummadda maskaxdooda iyo caqligoodana waa lagu ciyaaraya maxkamadda gobolka banaadir ninka hadaanan la geyn lahayn oo shuuta loo geyn lahaa shuuta waa horis dhaafi lahaa shuuta isaguma naxo haddii 2 cadeymood uu kugu helay ilaa 3 cadeymood suuratu maa'ida iyo xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ninkan waa la xukumay dabcan 2 maxkamadood ilaa 3 maxkamadood oo maraya hadda maxkamadii sare ayuu joogaa intaasoo maxkamado sababta qofkan loo marinayo maxay tahay inagu og inaysan wali dhicin ama ay yar tahay dad noocaas oo kale intaasoo maxkamad la soo mariyo baashow ninkan markii la qabtay maxkamadda gobolka banaadir in la geeyo ma ahayn aniga say ila tahay sababta maxkamadda gobolka banaadir waxaa la geeyaa tusaale ahaan lama geeyo dadka wax yar yar xada iyo taleefanada waxaasaa la geeyaa maalinkii la qabanayay isaga ee nisa qabanaysay waxaa la rabay maxkamadda ciidamada qalabka sida in la geeyo because ninkani waa dambiile waliba waa nooca ugu xun maxkamadda ciidamada qalabka sida hadii loo gacan gelin lahaa ninkii shuuta la dhahayay general shuuta waa salaamaya hadii shuuta loo gacan gelin lahaa muuqaal inta laga duubaa runta inta la sheega madax laga toogan lahaa laakiin waxaa loo gacan geliyay maxkamadda gobolka banaadir maxkamadaasina awood male awood waxayna ku lahayn abukaatayaasha wad gadanaysaa garsoorayaashana wad gadanaysaa maxkamadda koowaad ee gobolka banaadir talabaad iyo saddexaadna ambiil baa iska dhigaysaa lacag baad dhigaysaa weligaana dambigu iska soconaya waxa la leeyahay dawlad bay u dhiibaysaa dalkeenuna maanta male maxkamadda ciidamada qalabka sida maahan maxkamad kale oo power leh maxkamadda ciidamada qalabka sida waa maxkamadda dambiilayaasha ku argagixisada xukunta ninkan horta waa nin socda maalmaha inuu soo aadanna xabsiga waxaa la leeyahay sidii ma xasuusta xabsiga asluubta loo soo galay al-shabaab u soo weerartay ninkan waxaa la rabaa in la dhaho xabsigu ku dhex dhintay ama xabsigu ka baxsaday oo isaga oo design ahaan airportka dad baa ugu diyaarsan baasaboor waa loo diyaar garay diblomaasi ah tan kale tigirkiisa fiisihiisa waa u diyaar reerkiisa waxa ay rabaan 10 milyan ilaa 20 milyan inay ku bixiyaan in wadankaba laga saaro ama la dhaho niyow ninkani wuu baxsaday ama ninkani waa saan ama waa dhintay ninkana Abu Cabdicasiisna waxa oran lahaa hal talaan ku siinayaa Abu Cabdicasiis Soomaaliya waxba kama soo naasacada ala cashaatiyo ma ka soo baxayaan cadaalad ma helisid maadaama cadaalad helayni isaga tag wata yaa hortaagan in ninkan la qasaasan dad mas'uuliyiin ah kiiskan lugta kula yes ana ku sheegi kara reerka jifida uu isagu yahay baa hortaagan iyadoo fiita power adeegsanaya madaxweyne xasan sheekh maxamuudna marka loo geeyay faylka xoogaa faylashu way farabadan madaxweynaha loo geenayo hoos bay iska gelinaya waxa la leeyahay kii Sayid Cali marra wuxuu leeyahay haddii Sayid Cali toogto boojiro kala igu furmaya marka xasan sheekh maxamuudna waa gabanaya dadkii kalena waa gabanayaan maanta marxaati lama hayo mid nool mid jooga mid dhaawaca rag iyo dumar hatta caruurtii arkayay markii falku dhacayay waxa laga soo qaaday waxba yahay nin waxa jooga abukaata sangaaniya oo kala oo beena waas ilaahay ka furtay rabbi ya rasuul minna ana qoon abukaata xalana la dhahaa lacag 5 milyan u qaatay guriyaha muqdisho looga dhisay nairobi waxba looga gaday waxa la dhahay sida ninkan u badbaadin lahayd sidii run aad been uga dhigi lahayd isna tiibu ku falankeeda ku taagan yahay baasho wata ugu dambeyn aabahan geesiga ah muddo 8 bilood gabadhiisa cadaalad u raadinaya wax kasta lagu sameeyay si uu ninkaas loo badbaadiyo isaga maxaa lagu tilmaami karaa aabo horta waa aabo geesiya waa aabo jecel gabadhiisa Ilaahay u naxariistay waana haliyay u jilba adeegay isagoo loo cago juuleynayo isagoo leeyahay waan ku dilaynaa gaari baan ku jirsiinayna waan ku sameeynayna wax kasta waa lagu dhahay hatta waxa la dhahay Sheekh Khalid Gandarsho dhan waan xasuuqaynaa bal yaa wax naga qaadi kara anagu habar gidir baan la dhahay magaalada baan ka iskale waan hubaysana isagoo iyadoo wax kasta uu dulqaatay hada uu daalay diyo waa diiday oo wuxuu dhahay halay qisaastii culimadii Soomaaliyeed maanta kama hadlayaan Sheekh Cali Wajiis iyo wax la mid ah iyaga bada loo sahal marka kulli cadaalad Ilaahay bay taala agtiisa taala gobolkii Banaadirna maanta 28 degmay gobolka Banaadir uu ka koobnaa ka soo bilow Dayniile ilaa Afgooye ilaa ka gees koonfur iyo waqooyi Muqdisho cadaaladna lama helayo inta Xasan iyo Damul Jadiid ay joogan magaalada maxkamadihii baa gadan
CID dii baa gadan booliiskii baa gadan cid kastaa gadan وتاي أدبا ما سنتاي داود أركتي أهان maxay tahay sababta Sayid Cali kiiskiisa dheereysay ee sidii kartaa isagoo dhowr mar oo hore maxkamadda ka soo muuqday isla markaana dil toogasho lagu xukumay aragtidaada halkaa hoose ku soo lifaaq sidoo kale maxaad ku tilmaami lahayd aabba Sheekh Cabdulcasiis oo rahantii muddo 8 bilood ah har iyo habeenba aan ka daalin sidoo gabadhiisa Allahu naxariistay Luul oo cadaalad ugu heli lahaa intaanu markale kulmeen waxaan idin leenahay sidaas iyo amaana Allah ma tahay waalidku nool qurbaha mashquulka faraha badan ee qurbaha yaala adiga iyo ubadkaaga idinka mashquuliyay barashada quraanka kariimka mar walba walwal ma kugu haya xadiiskii nabigeena nabadgeliye naxariis korkiisa ahaatee ahaa alquraanu xujjatu laka aw alayka maalinta qiyaame quraanka adiga ayuu ku doodayaa ama ka doodaya haddaba macadka daaru raxma quraan online waa xalka mushkiladaada waana mid kamid ah dugsiyada faca weyn isla markaana ay ka faa'iideysteen waalidiin badan iyo caruurta ku nool qurbaha